Soo dhawaada caruuray, muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa beri waxaa jiri jiray beer weyn ay ku noolaayeen xayawaano badan. Beertan waxaa ku noolaayeen xayawaano badan. Xayawaanadaas waxaa ku dhex nooleed dawaco hagar badan, dhagar badan oo goor kasta ayaga u maleegaysa dhagar ay ku dhammayn lahayd ayaga iyo caruurtooda. Dawacay dabeecaddeeda mar walba waxay dhagar cusub u degaysay sidii ay ku dhammayn lahayd xayawaanada nabadda ku jiro, nolosha iyo raaxada iskaga nool. Maalin maalmaha ka mid ah waxay qorshe u degtay sidii ay ku dhibaateyn lahayd caruurta ama jilojiliga yarta ee digaagta leedahay. Digaagtan oo halkan u joogeen jilojiliyo badan. Digaagta arkaysaan ee labadeeda jilojili ay waxay doonaysay si ay ku dhammayn lahayd. inaan saan lagu kala harayn mar un waan dhammaysan qorsho un waa ula imaan aan jilojiliyadaas ku xidhi lahaa kaga dhammaysan lahaa baaba baan ka dhigan doonaa reerkan aad arkaysaan. Annaga jaana fahayadana way iskaga tagaysaa miya caruurtan jaanis baan ku laahay. Halkan ugu dhakanaysaa digaagtaas jilojiliyadeedii. Digaagtina jilojiliyada ay iskaga dhaqaaqday. Waatana dawacadii oo soo gaatamayso way soo gaatamayso si u soo gaatamaysay hal mar waxay ku booday jilojiliyada mid ka mid ah wayna la soo carartay way la soo fakatay. Hadda waatana aan gaajada uga bixi lahaa wixii aan gaajada uga bixi lahaa waayadan dhan maanta ku filan. Waxaa markiiba arkay waraabo oo ka soo daba booday oo wuxuu doonayay inuu ka soo dhaceeyo jilojiliga. Waraabahan ayaa ka soo daba booday oo ka soo daba cararay wuu ceyrsaday oo meel kasta ay gashay uu ka daba galay ilaa uu markii dambe ka soo dhaceeyay jilojiliga yarka ahaa ay qaadatay saqiir soo jir rabtay. Wuxuu dib u geyn rabaa jilojiligii meeshuu yaalay ayuu u sii wadaa. Dawacadina waa taa way sii cararaysaa waa fakad oo markan kan jihada ayaa ka lumay. Qorshe kasta way weysay oo u shaqeyn waayay. Digaagtii u geeyay wuxuu ku dhahay jilojiligaadii waxaa qaadatay dawaco balaaye dhagar badan. Huna waa maadsantaa dad ii badbaadisay jilojiliga. Way mid ducaysanaatay waa lagu soo ducay. waxaas waa shaqadii anigu ducay reerkan iyo xaradan. Dawacadii halkaan ay joogtaa oo meeshaan ay ka dhaaranaysaa waxay leedahay saan laguma kala harayo. In amaanta meeshaan gaajo ugu dhex noolaado ayagana iskaga raaxaystaan beertan ay iska tamashlayaan macquul maaha ayay leedahay. Maalinka dambe qorshe la imaaday oo way soo baxday. Waxay isku dayday bakeelayaasha inay ugaarsato laakiin way ka wada dhunteen oo gurigooda oo diyaar u ahaa ayay markii ku wada hoobteen. Dawacadii hoose ay u fiirinaysaa oo kama daba geli karto. Dhinac kasta ay fiirisana way yaaban tahay oo xal way la'dahay. Markii dambe way iska laabatay oo waxay dib u gashay meeshii ay ku dhuumanaysay. Waxay raadinaysaa meel gabaad ah oo madaxa la hesho ku dhuumato. Way heshay meeshii gabaadkii ku dhuuman lahayd. Marka kan waxay ka fikiraysaa waxa xigay ay samayn lahayd. Waxay tiri saan xal maahe ka waran haddii aan kayntan ayadoo dhan dab qabadsiiyo oo intay dab soo qaaday ayay qabadsiisay. Kayntii ay isla holashay hal mar oo holac cirka isla qabsaday. Waxaa soo bixin dhammaan xayawaanada kaynta ku noolaa ayagoo yaaban oo fajacaya ama ka afka haystaan. Waxay dhaheen kayntaanadii yaa saan u galay. Ugu dambeyntii waxaa la ogaaday in dawaca ka dambaysa waxa kan ay dhacay. Kadibna waxay damiyeen dabkii. Isweydiinayaan waa maxay xalka. Diin ayaa soo orday wuxuu yiri war xal yaa noo haya saan xal maahe. Waraabiya wuxuu yiri diinkii ayaa soo orday wuxuu yiri saan xal maahe maxaan sameeynaa. Doorada waxay tiri Anaa xal hayo. soo orday wuxuu yiri waa maxay xalka haddaba waa maxay xalkan noo hayso. Sameynaynaa qabley ayaan u dhigaynaa xarig ayaan ku xireynaa kadibna qableydaas ayaan hadhow ku jiidaynaa intaan xarig u sameyno jilojiliyada ayaan u dhex dhigaynaa. Keelana wuxuu yiri oo jilojiliyadaada Soomaalid galayaan. digaagtii waxay ku jawaabtay haa halis way galayaan laakiin xal kale miyaa haysanaa. Xalka waxaan sameynaynaa hadhow aan ka badbaadinaynaa. Xalka ay ku dhaqaaqeen mid jilojiliyada ka mid ayaa waxaa la dhex dhigay qafiskii oo waa ka qafiskii ayaa dhex geliyay. Ayadana waxay aragtay qafiskii oo ku booday waxay istiri jilojiligan cilada ku jira bal qabso hal mar baa waxaa loo gooyn doonaa xarigii. Eeg hadda hal mar xarigii loo gooyay meesha ay ayadana ku dhex dhacdo lagu qabtay. waa kan dawacadii oo qableydii loo dhigay ku jirta. Waxay ku heesaysaa
الأنا قبلي قلي قباس قلي الأنا قبلي قلي قباس قلي اللي نولش لو خبتي وما سنتين صاحب بيال عروري وحين وبلنا مقال كلات إن شاء الله.